waaye marinka hormuus maxaa ka cusub waxaa ka cusub wax u eg qosol iyo qaraaxo ama shac tiro soo liskuma ogeen meeshii maraykan isbaar dhigtay oo 10,000 oo askari qosolkan dhigeysta 10,000 oo askari oo maraykan ah meesha ilaalinayso diyaaradaha kaale arag droniska kaale arag helikabtarada kaale arag soo iskuma ogeen iyo 15 maraakiibta dagaalka maraykanka weliba noocooda halista destroyers loo yaqaano ee meesha joogaan qosol waa kan marka dhigaha fur markab maraykan uu raadinayaba 3 sano raadinaya marka maraykan uu 3 sano raadinayay oo hadda goor cunaqabateed uu ku soo rogay ilaa hadda cunaqabateedtaas ee saaran tahay waa markab lagu magacaabo Rich Starry oo Shiina laga leeyahay laakiin waxa ku qaraabtay Iiraan ku qaraabato shidaalkeeda iskaga daldalataa meesha rabtay u dirsataa markabkii maraykanka uu muddo 3 sano raadinayay oo aragtida ay ka dhaxaysay inuu qafaash diyaar u ahaa xalay qaab cajiib ah ayuu markabkii maraykanka isbaaridiis u agmaray lamana taabanin markabkii dooli xaluushay oo gudgal camal dhac jaflu dhahay hadda wuxuu ku sii xiranayaaba dekadaha Shiina ku sii xiranaya qosolkaas iyo qaraxaas waa idin wada muuqaal gabar CNN ka ah anoo sheekeynayso no bayaaminayso muuqaalka kale dabcan laba muuqaal idin wada mid waaba ka midka kalena waxa waaye sidoo kale 4 markab qosolka dhigeysta ayadana 4 markab oo laba markab oo 4taas kamid ah dekadaha Iiraan ka soo qaraabteen meesha u qaraab tageen qaabka ay ku galeen kaale adag sheeg dekadaha Iiraan tageen oo shalay uu Trump xanimaad ku soo rogay dekadihii adduunka soo qaateen oo shidaal iyo adduun kale ay ku jiraan way soo xamaashaan muxume iyagan isbaaradii maraykanka ay agmareen jaf tartiibko waa loo gooyay maraykan afartii laba qaliishka ka soo qaraabatay laba dekadaha Iiraan ka soo qaraabteen dhac wala agmar maraykan sidee ku dhacday iyo maraykankii oo hadda soo hadla asagan oo taagan waxna agmaray anaga ma arkin mana jirto bentiin waa maraykan u taagay waa benti waxna agmaray wala qosolkan aan ku bilaabo boqolka koowaad waatay gabadha CNN ta oo noo bayaaminayso oo leh war markabkii Rich Starry ahaa oo maraykan iyo markabkan aragti ka dhaxaysay maraykan meesha uma fariisanin maraakiibtan cunqabateenta inuu yani uma maleynayna maraykanka maraakiib uu raadinayaba wanted ahaa markab wanted ahaa inuu aaga ku jiro uma maleynayn maraykan sida adoo lagu dhahay kaal caliyow zaba gurigan ka jirto niyo ilbaabka no joogso zabgaad iyo ziyaaro joogna ka ilaali meeshii iyo soo gelin culumada waxa cunto adoo lagu dhahay camal zabgaadayaashii iska ka agmareen adoo u jeedin camal waay ana ad goor zab ilaali leedahay taas ay u dhacday waaye aydin fasax horta gabadha sheekeynayso oo hadlayso oo dhehayso markabkii Rich Starry ahaa maraykan wala iska agmaray lay xalay horta madaxuu soo dhiibtay markabka xalay fiiriya say wax u dhaceen muuqaalka inta aydin fasaxin markabka madaxuu soo dhiibtay dool yaro meel god madax soo dhiibana markay amal madaxuu soo dhiibtay mariga hormuus saanu dhahay wuu fiiriyay waa god habeen saqdhac waaya xalay waaya waa 1 am saas u fiiriyay maraykan oo xaag nalkiisa ka shidin oo xalay arkay markabka dhac uu soo kala firay taftiika banaanku dhahay waa Rich Starry oo markabka dhan raadinaya wantarka ahay dhac uu soo kala wareegtay 2 saac meesha u fadhiistay haddana mar labaad isku dayay madaxuu soo dhiibtay maraykan wuxuu arkay mashquulsan wala agmar leebis luuq leela maray dhac maraykan waa loo gooy hadda markabkii Shiina ku sii xirinaya horta gabadha hanoo tataabato. Apart from one incident, and this is really interesting because this is a Chinese-owned vessel. It's now said to have tested the US naval blockade because it has passed through the Strait of Hormuz. Let's take you through this. This is a Rich Starry. This is a tanker said to be carrying methanol. It started moving from Sharjah here in the UAE. Remember, a lot of these vessels turn off the AIS transponders, so you don't really know the origin of which port that they moved from. Starting to move towards Keshem and Larak Islands, then, starts aborting mission, moves back, and then starts to take that route once again, passing through the strait in the early hours of this morning. Now, this is a tanker that has been sanctioned since March 2023 by the US Treasury Department because it has links to Iran. Now, meel yaroo fuqsana iska marmarooya waaba kanaaba marinkii hormuus
isbaari inay oolin camal markab dhan oo wanted ahaa oo la raadinayay cunaqabata ee saarneed oo maraykan iyo asaga aragtay ay ka dhexeyso waa iska agmari waayay muuqaalka kale waa garaya gabadha afar markab kale labo firiya dekadaha gebi ahaanba maraykan wuxuu dhahay sidaa ogeedeen Trump shalay dekadaha Iiraan gebi ahaanba xanibaada saaran ilaa jarmal ahaa meesha simtay soo ma dhihin labadoo markab kale dekadii xalay Iiraan iskaga qaraabatay adduunka soo rartay labadoo markab kalena qaliishka soo mareen meeshaas wax ka soo qaateen ayagana waa afar markab dhacsi u soo socdeen maraykan oo asagana sii jeedalay dhowrka laga mari kaaleen arag adig qosolkan aadin fasax on what is happening right now in the Strait of Hormuz with the latest ship tracking data that's been analysed by BBC Verify showing that 4 Iran-linked tankers have crossed the strait despite Washington's naval blockade. 2 of those ships had visited Iranian ports, that's according to Marine Traffic. Its data shows a bulk carrier, the Christiania, crossing the strait on Monday, having called at the port of Bab el-Mandeb. China, the biggest buyer of Iranian oil, describing the US restricting access to Iran. warka hee idin siiyo dabcan meesha waxaa ka muuqato ninka Shiina ahaa iska dhex qaraabanood Shiina wuxuu haystaa tiknoolajiyada casriga ah satellite-ka iyo maraakiibtiisa tiknoolajiyada ku xiran marka aniga waxaa isleeyahay ninka Shiina ah ayaa Mareykanka indhaha ku hayo horta maraykankana ciidankiisa dabcan waa inay iskala bedelaan maraakiibta waa in meesha laga soo wareejiyo qaar kale meesha la geeyo ciidankii qaar hurdo loo diro qaar heegan la geliyo kala bedelkaas waqtiga ku lumaayo 2 saac 3 saac aw Shiina marka liifka u saarneed maraykan markuu kala bedelaad sameeyaa saad u faahwaaya markabka xalay xayuu baa dhahay oo meesha iska maray tartiibko wuxuu ka faa'iideystay kala bedelaadii iyo mashquulkii maraykanka ciidamada hurdaay iyo ku hurdada laga soo kicilay wallahi kaal idinka heeganka gala caaw intii yareed uu indhaha ku haysheen oo ka faa'iideystay saas adiga isle marka sheekada Trump baqlay saak xanaaq dirtiis Trump wuxuu taagay hadartaan Shiina la sheegayba niyo waa inaan taariif ku soo rogaa canshuur